waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan nagana daawanaysaan maanta waxaa stuudiyaha marti noogu ah oo waraysigani nagala qayb galaya aqoonyahan Cabdimaalik Askar oo isagu inta badan ah nin suxufiya oo gobolkan si weyn looga yaqaano isla markaasina kaalin firfircoon kaga jira siyaasadda gaar ahaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn kana qayb galay haatan ka hor shirweynihii Khaatumo 1 ee lagu qabtay magaalada London ee wadanka Britain. marka hore Cabdimaalik Askar soo dhawow aad baa mahadsantahay Ali marlabaadka hore waxaan isaga waraysanay shirkii Khaatumo 1 ee London lagu qabtay aad ka qayb gashay haddii dadka ina daawanaya aan dib u xasuusiyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagu soo qaatay waxaad igu soo koobtay laba qodob labadaasi qodob haddii aan dib u xasuusto waxay ahaayeen in ay midoobeen saddex urur oo shirka ku midoobay oo lagu kala magacaabo NSUN iyo ururka la yiraahdo SSC iyo waliba ururka kale ee CAF la yiraahdo dabeetana ay isla qaateen saddexdaasi urur midow ah ama ku salaysan ururka SSC in ay markaasi ay isla qaataan shirkaasi waxa kale oo aad ii sheegtay in markaasi lagu soo gaaray go'aan ku saabsan in shirweyne kale lagu qabto gudaha wadanka Soomaaliya meel ay noqoto waana runtii shirkaasi kaynu iska waraysan doono ee Khaatumo 2 lagu magacaabo oo qaban qaabadiisu imika ay socoto lana filayo bishan soo socota ee November in markaasi la qabto labada qodob Cabdimaalik kadib waxa sameysmay group ama koox lagu magacaabo G6 ama aanu malaynayo in marka ay tahay group 6 haddii ragga group 6 kamida aan magacaabo Ali Khaliif Galayr baa ku jira waxa kamida Ali Ciise Cabdi ninka la yiraahdo isagana iyo qaar kale sidii board ama guddi oo kale ayaa markaasi ay u dhisan yihiin bal horta intayna shirka Khaatumo tagin G6 yaa sameeyay shirkii London ee aad ka qayb gashay go'aan lagu gaaray in la sameeyo groupkaasi ma jiray waa gartaa Ali aad baad mahadsantahay sidaad igu soo casuuntay runtii halkan sidaad ogtahay shirkii Khaatumo markii aanu joognay labada qodob wax ka baxsan laguma soo bandhigin waa tahay lama dhihin waxa la magacaabaya guddiyo lama dhihin waxa la magacaabaya dad board oo kala ama dad decision makers oo go'aan gaaraya lama dhihin mana jirin G6 waxa la yiraahdo aqoon-yahana isku yimid waa la dooday waa laga hadlay sidaan sheegnay horumarka midnimada iyo difaaca saddexda qodob oo ahaa ka bacdina labada qodob baa ka soo baxay gudaha shir lagu qabto iyo la tago laakiin markii aanu ka soo tagnay intii aan halkan idin la joogay ayaa waxa soo ifbaxay in 6 nin ismagacaabeen 6 nin baa markaa loo bixiyay G6 iyaga ismagacaabay waa tahay anagoo joogna London iyo xataa conference inta la soo xiray intayadii ka qayb gashay nalama dhihin yaa la doortay yaa la magacaabo iyo election la qaaday mid toona ma jirin iyaga ismagacaabay ka bacdina internetadu baanu ku aragnay G6 magacay lamida talaabooyinkii marka ay qaadeen G6 marka haba ismagacaabaan iyagu maxaa kamid ka bacd waxay qaadeen inay si magacaawdaan iyaguna guddiyo waxay magacaabeen guddi dhaqaale iyo guddi siyaasad guddi arrimaha dibadda ah saddexda qolo waxay qabteen ma jiro laakiin waxa la dhihi karaa hal qodob bay qabteen oo shirkii lagu soo ballamay taasina de waxa hirgelisay maadaama aanu xaqii ballan ka soo qaadnay ku saabsaneed in lagu ballamay in shirkii la sameeyo gudaha ayaa 16 nin oo mid xanuunsaday yaa gudihii loo diray inay soo qabtaan laba qodob meeshii lagu qaban lahaa shirka iyo goortii la qaban lahaa 15 qof marka gudihii bay tageen waxa ka bilaabeen gobolka Cayn ka bacdina Sool bay ku xajiyeen ka bacdina Sanaag bay tageen waxayna markii dambe la kulmeen ismadii iyagoo jooga magaalada Tukaraq ismadii mid kamida oo Garasalaabaan iyo wuxuu ku dhawaaqay inuu isagu hooste garaynayo laakiin aan ka dhaxgalay magaalada xagee lagu ballamay in lagu qabto magaalada waxa lagu ballamay labadii qodob iyaga loo diray wuxuu ahaa waxay sheegeen Taleex in lagu qabanayo goorta la qabanayna November 20keeda Garasalaabaan uu aqbalay markaa Garasalaabaan wuxuu yiri gogashaan dhigay waa tahay soo isna ka bacdina Garasalaabaan day kaligiis ma ahayna wuxuu kula noqday ismadiisii kale magaalada Garowe iyagoo jooga bay baaq soo saareen qodobo ku salaysan inta ergada ka qayb galaysa iyo sida shirka loo maamulayo ka bacdina qoladan iyagu ismagacaabay G6ka yaa iyagu markaa ka biyo diiday in iyagu qaybinta ay sameeyaan
oo dee maadaama iyagu ismagacaabeen u malayn ma inay ka xishoonayaan inay iyagu wax qaybiyaan taasa marka waxay keentay in khilaaf weyn uu ka dhex abuurmo isimadii iyo qoladan iyagu ismagacaabay khilaafkaas ilaa halku gaaray markaa khilaafkii wuxuu gaaray wuu sii durqay waxa uu gaaray in uu hadda ay marayso khilaafkii in la falafo iyo beelo la isku qabsado kuraas aan jirin oo meel la dhigayaan waliba la ogeyn laakiin magaaladii kaliya la sheegay inay isku haystaan laga yaabaa inay isku dilaan dadka sidaan la socono shirkii lagu qabtay London waxa lagu casumay oo ka qayb galay aqoon-yahano shirkan khaatumo hadii imka gacanta ay ku dhigeen isimadu waliba iyagoo garawa jooga ma isla aqoon-yahanadii si kastaba ha u qaybiyaan xubnaha ayay casumeen oo xubnaha ka qayb galaya waa aqoon-yahano mise waa arrimo ku saabsan in ergooyin dhinaca dhaqanka ah waxa sida ay u qaybiyeen iyagu kulli u malayn ma inay aqoon-yahanadii meeshii bay uga tageen oo waayo hadii xataa wali aqoon-yahanadii iyo wax la sii weydiinayo xataa waxa la weydiin lahaa iyagu ismay magacaabeen oo aqoon-yahankii lagu socon lahaa waxay yiraahdeen qof walba laakiin ergada ku jira ha ka soo qayb galo marka mid ka yimid qurbihii iyo mid aqoon-yahana iyo mid isagu maamul kale haduu doono wata ya meeshii isku imanayo kala wada fikrad ah waxaan caliya ugu weyn waxa weeye oo dhibka taagan yahay dad badan oo meel iskugu keenayo oo haddana uusan ajendii qornayn labada qodob ee ugu muhiimsan ee khilaafku ka muuqda waxa weeye marka uu horse qaybinta ergooyinka taas waa qodob Soomaali waa aad iyo qodobka kale ma oran karayna khilaafyo dhinaca maamulada oo maamulka Puntland iyo maamulka Somaliland khilaaf la kala taageersan yahay ayaa isaguna meesha ku jira qodob kale kugu sii daraya waliba ilaa ay hadda waxaan la ogeyn khaatumo sababta shirka loogu qabanayo gudaha ma la ogeyn hadda shir lagu qabto gudaha un baa caliyo leeyahay laakiin maxaa loo qabanaya ma biya la soo saaraya ma dhul baa la difaacaya maxaa la qabanaya ilaa ay hadda meel lagu qoray qolada atriwas magacaabeen ee G6 iyagu ma ka hadleen ajenda ma soo diyaariyeen shirkaasi laga hadlo waxay yiraahdeen marka meesha la tago yaa la sheegay laakiin ka hor waxba lama oga laakiin waqtigu uu dhow yahay mooda Cabdimalik hadda xilligan imkaan ku jirno oo kale marka loo eego sidee u dhici kartaa in ajandihii oo aan la haynin inta shandado iyo boorsooyin la qaato la tago taleex dabeetana la yiraahdo waa maxay ajanduhu soo marka khilaaf hor lima bilaami karo cali saad ogtahay dadkan ismagacaabay waxay u badan yihiin old school oo waagii hore ee dadka inta la iskugu yeero wax dhigta loogu shubi jiray bay aaminsan yihiin laakiin caalamka maanta waxa weeye marka conference la qabanayo projectigii oo dhan oo wada qoranay saacadii la galayay iyo qofkii ka hadlayay iyo wixii uu ka hadlayay oo qoran oo intaas oo in la eega baa lagu soo diraya taas adoo wixii oo dhan fahansan haya hadii xataa uu leeyahay sessions oo la kala qaybinayo ka doonto marka uu marayo saacadii baad aadaysaa laakiin 2011 shirkii waxaanu kaga hadlaynaa garanayna marka meesha limaada la garanaya anu ma garanayo wax soo saaso kala dadku maxay mala awaalayaan ma in dan laga hadlo mise in siyaasad laga hadlo shirka dadku laba siyoodba cali oo kala qaadan ma dadka aqoon-yahanada ee iyagu ama wax akhriya ama wax la socda mise dadku iyagu wax loo sii sheego midba dadkan wax akhriya waxay leeyihiin anagu hadii aan wax akhrinay nimankana waxaan ka garan karnaa barankan ama waxaan soo socday anagoo ku eegayna argumentskeena inductive ka soo qaad SSCD waxay ahayd ujeedadooda mideen iyo xoreyn wax cad bayna ahayd haddii SSC nimankani ay ku duulayeen ujeedadeedii waxay ka dhex muuqan lahaayeen xafladii SSC loo sameeyay October tan hadda aynu joogno ayaa la arki lahaa iyagoo ka hadlayo oo mideen iyo xoreyn ka hadlaya midna kama iman iyagu kuwii taageersanaana midna kama iman taa marka waxaanu dhihi karaynaa ma ogola isimadii markuu Garaasaleebaan ku noqday Puntland ee Garowe uu tagay ee isimadii uu la tashaday ee uu baaq soo saareen way ka biyadiideen oo waxay yiraahdeen Puntland baa ka dambaysa haddaba cali oo marka dadka qaar waxay leeyihiin nimankan waxay nagu wadaan ba Somaliland bay nagu wadaan iyagoo qaarkood lagu xamaneeyay ta kale marka taa aqoon-yahanadu conclusion-kooda waxay soo galaatay nimankani waxay noo wadaan Somaliland tan kale ee iyagu dadka wax loo sheegaa waxa loo sheegay in nimankan ay sameyn doonaan maamul ka madax banaan Somaliland iyo Puntland oo la barwaaqeyn doono laakiin uma leen ma inay jirto hadii Cabdimalik aan dib ugu noqono shirkii Khaatumo 1 ee London lagu qabtay aan markale ku celiyay waxaad moodaysay ururadii midoobay in ay markaas la midoobeen in ay qaataan magaca SSC
xilligan imika lagu jiro marka loo fiirsado dhaqdhaqaaqa military SSC wax muuqda maaha marka xaqiiqda laga hadlo SSC ma G6 baa daaqada kala baxday marka anigu markii hore wareysiga hadaan xasuusto gabagabadii waatan ku soo gabagabeynay SSC leadership-keeda iyo ku xidhnaan doona meesha ay gaaraan waatay leadership-koodii SSC markii khaatumo ay nimankan ismagacaabeen oo yiraahdeen go'aanka anaga sameynayna oo ay gudiyo sameeyeen waxay noqotay dadkii in markaa ay yiraahdaan SSC ba maxaa niman baaba wax samaystaybe taasi horta SSC waxa ku timid burbur runtii aad iyo aad iyagoo awl horeba ay maamulo dhinacyada ka jira ay la dagaalamay marka waxay ku noqotay runtii arrin aad iyo aad u adag laakiin SSC dhexdeeda leadership-kiisa laftigiisu waxaan u maleynayaa inuu isaga laftigiisa la iman hanasho uu ku sii hanto ama markaa nimankan iyagu ismagacaabay ay yiraahdaan niman baa ismagacaabay laakiin anagu waxaynu sii wadanaa arrintaas ma la oran karayaa waxa keentay lafteedu in ay SSC kala furfurmaan oo mesela leadership-ka imika ka hadlayso kale madaxweynaha Salebaan Xagle Toosiye iyo Colonel Ali Sabre oo kale in markaas ay ku murmaan in mid walba uu yahay madaxweynaha dhabta ah ee SSC u taagan ma ku salaysan tahay arrinta G6 imika aad ku eedeynaysid Ali waxa taa horta SSC-da ugu horeysay bayaanan dhaafinba khaatumo markii shirku la qabtay ayaa dad badani waxay suuqa soo galiyeen waxana lagu wada Somaliland oo heshiis baa la galaya niman kamida khusuusidii SSC yaa markaa waxay leeyihiin nimanka qurbahooba waa ku u ordaye yaana nalaga dheerayn Hargeysa oo waa ku Hargeysa aaday halkaas uu ka bilowdo horta SSC khilaafkeedu burburka iyagoo ah ayaa ka bacdi sidoo u socday ayaa khaatumadan ku timid tan waxay keentay inuu markaa Ali Sabre ku xigeenka uu yiraahdo khusuusda qaar kamida ee u magacaaban madaxweyne way 9 bilood ba iyagu mala constitution ka dhigteen ugu qoran in madaxweynaha haduu maqan wadanka laga qaado xilkii haddadan aan kula hadlayo waxay isla joogaan buu hoolay isla joogaan Ali Sabre iyo Xagle Toosiye ka madaxweynaha ilaa ay hadda macada oo dad badan oo dibadda jooga jaawarar bay ku qabaan waa kee madaxweynuhu ma garanayna maamulka Puntland muxuu ka aaminsan yahay shirka khaatumo waa su'aal aad u fiican Ali maamulka Puntland dadka qaarkood ma sida ugu sheegeen mise waxa jira maamulka Puntland qaar waxa ay yiraahdaan dadkana way shirayaan oo markay shiraan ka bacdina Puntland bay la xisaabtamayaan oo Puntland baa la xisaabtamaya leeyahay heshiiskii hore iyo wixii aynu ku galnay waad ka baxdayna ama waxan laga bedelo ama waxan isla janqaad waa sida dadka jecel Puntlandersku ay u sheekayaan laakiin sid nimankan ismagacaabay iyagu ma rabaanba wax Puntland ay leedahay in meeshii maadaama ka soo qayb galo taas ma muujinaysaa markaa in shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in weli ay jahwareer siyaasadeed ay ku jiraan Ali ugu daran waxa weeye iyagoo shacabkii ay ol horeba maamulo wareeriyeen oo haddana markii dambe ay SSC timid oo meesha haddana dagaal ka dhacay ayaa haddana waxa loogu sii taray khaatumo iyo shirar kale way soo ogtahay shirar baa boocama 1 iyo boocama 2 iyo boocama dadkan ay qabsadeen haddeerna waxa loo bilaabay dheeshiyo kale khaatumo 1 iyo khaatumo 2 iyo khaatumo 3 marka waxaad moodaysaa in shacab masaakiin ah oo runtii lagu ciyaarayo leadership adag qof adag oo hogaamina waayay ama maamul adag oo hanta waayay oo marka aad moodo in kubad loogu ciyaar iyadoo loogu ciyaarayo laba qodob ana aqoon-yahan oo kugu ciyaaraya iyo ana reehebel kula ah oo kugu ciyaaraya oo marna basal baa looga dhigayaa marba laf baa la leeyahay sahaan baa halkaas iyo haan baa halkaas iyo tasaddexaad oo ah isimo iyagana yiraahdo anaga matalo oo marba qof inta qorto maamulo shaqo ka siiya saddexdaa qodob waxay u keentay dadkan jaawareer wadaadaduna ay u sii dheeryihiin waliba Cabdimaaligo maxaad oran lahayd beesha iyo talada gacanta ku haya ma aqoon-yahanada mise ismada dhaqanka xilligan imika lagu jiro xilligan imika lagu jiro waxa ku haya qofkii beesha wax siin kara saad ogtahay meeshii gaaja ayaa ka jirta iyo aqoon darro taa waxay keenaysaa in dadka qaarna maskaxda laga hado qaarna ay keento in markaasi la yiraahdo anaa shilin maanta ku siinaya ee beeshaada baawur igu soo guro oo baawur lagu soo guro saad ogtahay dhaqaalaha Puntland soo gala buuhood leh haddaan tusaale u soo qaadno $11,000 baa bishii ka gala maamulka Puntland $1 million ya soo $12,000 xaqu ka gala $12,000 waliba wuxuu ka galaa oo liyada askarta ayaa la siinaya iyo odayada dhinaca Somaliland Puntland
puntland puntland $11,000 ayay puntland u keentaa buuhood waa tahay oo simada iyo ciidamada ayaa la siiyaa waa tahay iskuuladii 4 iskuul 4 macallin baa loogu qoran gobol dhan oo intaasoo arday joogto oo macallimadiisii iyo takhaatiirtii iyo social service-kii oo dhan in la yiraahdo $11,000 bishii waa maamul hadduu sheeganayo $11,000 baa qaar waxay doonayaan dadkaas oo dhan ay yiraahdaan maamulkaas xukuma waa tahay Soomaaliland iyadoo gobolka cayn waagii hore wax uga imaan jiray laakiin hadda shilin uga ma yimaado aan ahayn dagaal oo kuwa beebeeyada iyo baroonada inta soo qaatay karsha la kulaayay dorrada ugu dambeeyay qaar dhaawacoodii dibadda loo bariyay oo la leeyahay waa kana uu fadhiyaa ninkii halasiyo taasina waxa uu keentay Soomaaliland Puntland dagaal buu ma keenin laakiin Soomaaliland iyadoo dagaal bay u sii dartay iyagoo dadkaasi dhib haysta waa tahay Cabdimaaligow marka aad guud ahaan eegtid shirarkan Khaatumo 1 iyo Khaatumo 2 loo bixiyay iyo mid kale laga yaabo inuu mid kale oo saddexaad yimaado ay dhici karayso dadkii wali sidan ku sheegay waxa ku jira waa confuse ama waa jahwareer baa ku jira dhinaca siyaasadda ummadii markaad adigu maanta kale la hadlaysid maxaad u soo jeedin lahayd maxaa u danbaad oran lahayd dadkaasi shacabka ee iyagu masaakiinta ah ee marna xaggan loo wado marna xaggan loo wado ee la jahwareeriyay dantoodu maxay ku jirtaa baad oran lahayd maxaad kula talin lahayd cali saad ogtahay ummadii waxay ka bilaabataa siyaasad waayo siyaasadda sideen u naqaano ama halkan aan ku baranay Mareykanka iyo dhulka taala way kala duwan tahay Mareykanka waxa lagu baray siyaasad waa noloshii way qofka noloshiisa waxa ka bilaabataa siyaasadda laakiin se dhulkii waxa lagu baray dadka siyaasadii waa qofka ku khiyaamaya ku dhacaya markuu yiraahdo xagga siyaasad baan ka shaqeynaya wuxuu yaqaan ka dhacaya ee khiyaamaya nin wax khiyaamanaya oo yaqaan waxa ka qaldan goboladan Sool iyo Sanaag yacayn noloshii dhameed oo siyaasad ah haddii aad ka dhista dhakhtarka ugu fiican baa buuhooda laga dhisay xagla toosi uu ku amaanay dhakhtarka ugu fiican uu ka dhisay laakiin wuxuu ka socon waayay waxay ahayd siyaasadii way haddaysan siyaasadda mabda'eedan uusan fadhiyin meel soconaysa ma aha marba waxa boo ama 1 iyo 2 iyo loo sameeynaya waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yaadan siyaasadii ayaan raadinaynaa meeshan ka bilaabi lahayn marka ilaa siyaasadda la saxo ama dadka la baro waa maxay siyaasadda inay tahay noloshoodan iskuulada ay ku aadayaan ee wax ku baranayaan biyaha ku soo saarayaan celash ku soo saarayaan ilaa la baro umaleen ma in meel la gaarayo iyadoo waqti uu haatan gabagabeeyahay Cabdimaaligow G6 aniga laftaydu ka cali ahaan maanta ka hor maan maqal eed loo soo jeedinayo in 6 nin oo iskoodii uu soo magacaabay ay shirarkii gacan maroorsi iyo afduub ku qaateen dabeetana ay dadka u jahaynayaan meel iyaga midalan ay dan ugu jirto oo kale sida hadalladaada ka muuqatay dadkaasi G6 aqoon-yahanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo ismada dhaqanku iyagu mowqifkaaga eedda oo kale ma kula qabaan ma oran kartaa adiga ka hor eeddaas way jirtay oo dadkaas G6 lagu magacaabay iyagu aad baa loo eedeynay fartan lagu fiiqay adiga ku hor ma jirto eedaas cali saad ogtahay dad badan waa la eedeeyaa eedana ma sideedu waa critique waa loo goliyay critique waxa weeye wuxuu keenaa war maxaa saxmay maxaa qaldamay haddaynu shir inta iskugu nimid anagoo fadhina ana lagu magacaaban oo markaad baxday adigu ismagacawday dee taa lafteedu waa lagu eedeynaya oo waxa lagu leeyahay ku magacaabay marka hore ama yaa ku dirsaday laakiin qofka hadduu yiraahdo ana volunteer isku sameeyay oo magacaabay waa suuragal weeyaan waana loo ogol yahay taas way mid aan ka duulay ee aan leeyahay dadka ma leedeyn kara mid kale jirta waxa weeye dad badani waxaad moodaa inay wax sugayaan ama ay gabanayaan oo ay leeyihiin intii adigu eed ku raacay lahayd ama la dhihi lahaa waxbuu burburiyay ama waxbuu dudumiyay waana ka aamusaa dee aamus ma ahe aamusku qalad ma aha haddaad wax sheegto ceebna ma aha waad dhihi kartaa niman aan la magacaabin iyo haddana doonaya ummaddii dhammayd majaraheediina wax u qabtaan dee taas ceeb ma aha G6 waxay u xaglinayaan sida hadalkaaga iga muuqata Soomaaliland ismada uu horkacayo Garaad Salebaan oo iyagu martigelinta ballan qaaday iyana waxa ballantoodii iyo wada hadalkoodii ay ku qabteen Garowe oo ah Puntland labada Puntland qolada ku shiraysa ee go'aan ka soo saaraysa iyo qoladan kale iyana dhinaca u xaglinaya Soomaaliland meel dhexe oo dadku dan ugu jirto ay mari karaan ma muuqata way jirtay USC baa u hana qaaday si saada cala tiri oo USC baa u sameyn lahayd maamul loo wada dhan yahay waxay yiraahdeen USC ma rabno oo waa kuwan inta shiray USC banaanka dhigay USC hadda dudumisay SSC2 miyadu keenaysaa Khaatumo waa tahay
su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya cabdimaalig waxa weeye shirkii khaatumo waxa la qabanaya bartamaha bisha nagu soo fool sidaas sheegtana ilaa iyo hadda ma cadda ajantaha lagu qabanayo ama arrimaha laga wada hadlayo shirkaas shirka ma ha laga qayb gaad odhan lahayd ma dib ha loo dhigaad odhan lahayd waa maxay taladaada talada waxa weeye shirkaas waxaan dhihi lahaa ilaa wuxuu uu cad yahay ilaa xalaal baa la yidhi waxa la quutaa dharaare ilaa uu cad yahay ma qaba in laga qayb galo waayo wuxuu ku sii beerayaa uun mushaakilkii iyo confusionkii ayuu sii wadaya waxaan dhihi lahaa ilaa la yidhaahdo shirkaasi wakhtigaasuu dhacaya waa la sheegay goobtu ka dhacayna waa la sheegay laakiin ajendihiisii xataa haddii la yidhaahdo beel baa shiraysa oo ka shiraysa inay danaheeda ka tashato waa wax dhown oo mishinkeeda la sheego laakiin ilaa hadda meel ku qoran yahay waxaas loo sheegay ma qabo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdimaalik askar oo ka mid ah isagu aqoon-yahaniintii hore uga qayb gashay shirkii khaatuma 1 ee lagu qabtay magaalada London haatanna isagoo inaga warramayay qabanqaabada iyo sida uu socdo ama loo qabanqaabinayo markaasi shirka soo fool leh ee khaatuma 2 laguna qaban doono sida la malaynayo markaasi magaalada Taleex aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aqoon-yahan cabdimaalik askar aad baa mahadsan tahay